kulanti wacan wanaagsan saxaabiga ku soo dhawaada warbixinada ugu xiisaha badnaa ee hadalhaynta suuqa kaliibsiga ciyaartoyda fadlan haddii channelka aad ku cusub tahay subscribe gambaleerkana riix si uu ku soo gaaro hadba warbixinadii ku soo kordha channelkeena kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa ku soo guuleysatay dalabkeedii baadigobka ahaa ee xidiga reer Brazil ee Gabriel ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Lille Arsenal ayaa markaa ogolaatay adduun lacageed gaaraya 22 milyan oo lacagta Giniga waqtiga kan xaadirka tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Mikel Arteta ayaa markaa ka guuleystay kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo Napoli oo in mudahaba baadigobaya ciyaaryaankaasi Gabriel difaacan wuxuu kamid ahaa barnaamijyada ugu muhiimsan oo raadinayo tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Mikel Arteta oo muhiimadiisu ay tahay inuu u diyaar garoobo xil ciyaareedka cusub ee 2020-2021 horyaalka wadankaasi Ingiriiska Mikel Arteta ayaa muhiimad gaar u arkaya saxiixani inuu yahay midka ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta Arsenal waqtiga kan xaadirka marka ay sameysay Arsenal ayaa markaa doonaysa inay iska tiiriso qaybta dambe ee difaaca xidigana ayaa muddo aad u fara badan bal la hadal hayay mustaqbalkiisa meesha uu ku dambeyn doono iyadoo ugu dambeyntii Arsenal ay markaa ku guuleysatay saxiixa ciyaaryaankaasi Gabriel laacibkani ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Lille ayaa kamid ah difaacyadii ugu muhiimsanaa ee ka dhex muuqanaya kooxdaasi difaacan Gabriel ayaa markaa noqday difaacyada ugu hadalhaynta badan ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ugu dambeyntii waxaa la xusay kooxda kubadda cagta Arsenal inay ka guuleysatay saxiixa xidigaasi Manchester United Napoli walow aan si rasmi ah loo shaacinin Gabriel sanadaha uu Stadia Emirates uu kula qaadan doono kooxda kubadda cagta Arsenal laakiin Mikel Arteta ayaana markaa u arkaya fursad aad u wanaagsan iyo guul muhiim ah ay u soo hoyatay kooxda kubadda cagta Arsenal in waqtiga kan xaadirka markaa gacanta ay ku soo dhigaan xidigii difaaca kooxda kubadda cagta Lille ee Gabriel Owen Hargreaves ayaa kula talinaya maamulka sare ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City in waqtiga kan xaadirka u dhaqaaqaan ciyaaryaanka kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez oo aad loola xiriirinayay bilihii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka Owen Hargreaves waxa uu aaminsan yahay in ciyaaryaankan tayada wanaagsan ee ka soo jeeda wadankaasi Argentine ee Lautaro Martinez inuu isbedel xoogan uu ka sameyn karo qaybta weerarka ee kooxda kubadda cagta Manchester City xaqiiqdii waxaan kula talinayaa kooxda kubadda cagta Manchester City inay u dhaqaaqdo xidigaasi Lautaro Martinez inta uusan u ambabixin stadiyaha Nou Camp ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona markaa ku ciyaarto tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa sidoo kale aad u xiiseynaya ciyaaryankani waxaana loo arkaya laacibkani Lautaro Martinez bedelka xidiga isku wadanka yihiin ee Sergio Kun Aguero waxaana kooxda kubadda cagta Manchester City ay wadaa isbedelo ku aadan qaar kamid ah ciyaartoyda oo markaa la sheegay kooxda kubadda cagta City ay u baahan tahay inay dhowr ciyaartoy ku soo biirso garoonka Etihad Stadium kadib labadii saxiix ee ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay sameysay sida Ake iyo Ferran Torres waqtiga kan xaadirka Owen Hargreaves ayaana markaa aaminsan in ciyaaryankani Lautaro Martinez uu noqon doono laacib wax weyn ka bedeli kara isbedelka qaybta weerarka asagoo ku tilmaamaya in ciyaaryankan uu yahay haliye u muhiim ah kooxda kubadda cagta Manchester City waana xidig guulo fara badan u horseedi kara kooxdaasi muhiimadu waxay tahay in City aysan ka leexanin dalabka ciyaaryankaasi reer Argentina ee Lautaro Martinez xidigani ayaana markaa go'aansan doona inuu isaga dhaqaaqo horyaalka sirada wadankaasi Talyaaniga kadib markii la soo gabagabeeyay tartanka European League ee finalka kooxda Inter Milan la ciyaari doonto kooxda Sevilla waxaana waqtiga kan xaadirka City ay markaa baadigoob xoogan ugu jirtaa wadadii ay kula soo wareegi lahaayeen xidiga kooxda Inter ee Lautaro Martinez shakhsiyan wiilka Argentina wuxuu aad u xiiseenayaa kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaana markaa xusaya waqtiga kan xaadirka in kooxda Barcelona ay hakad ku sii noqon doonaan ciyaartoy ay kamid yihiin Sergio Busquets iyo Jordi Alba waxaana uu xusay labadaasi ciyaartoy ay muhiim u yihiin kooxda kubadda cagta Barcelona isbedel balaaran ayaan sameyn doonaa balse waxa uu ku dhawaaqay Koeman in ciyaartoyda ay kamid yihiin Ivan Rakitic, Luis Suarez iyo Samuel Umtiti xidiga kaleba in aysan ku sii nagaadi doonin shaxda kooxda kubadda cagta Barcelona waxaana uu qiraya in isbedel xoogan uu damacsan yahay in uu ka doono mustaqbalka kooxda kubadda cagta Barcelona Koeman ayaa hore ugu soo ciyaaray mustaqbalka kooxda kubadda cagta Barcelona waxaana uu doonayaa in xilligan isbedel muuqda oo markaa u soo bandhigo maamulka iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona waxaana xilligan carabka lagu dhufanaya ciyaartoyda Ivan Rakitic, Suarez iyo Samuel Umtiti aysan markaa noqon doonin kuba ku sii nagaadi doon xil ciyaareedka soo socda kooxda kubadda cagta Barcelona waxaana uu amaan dusha kaga hubiyay ciyaartoyda Sergio Busquets iyo Jordi Alba oo ah laba ciyaaryahan ee si weyn markaa ciyaarahooda u muujiya markay
ee Barcelona ka dhex muuqanaysa tartamada. Maamulka kooxda kubadda cagta Everton ayaa xilligan u dhaqaaqay dalab ku aadan kabtanka kooxda Roma ee Florenzi. Sida warbaahinada qaar ee dalkaasi Talyaaniga laga soo xiganaya ayaa cadeynaya in waqtiga kan xaadirka ciyaaraankaasi Florenzi loo gacaatinayo horyaalka waddankaasi Ingiriiska gaar ahaan tababaraha kooxda kubadda cagta Everton Mr. Carlo Ancelotti ayaana muhiimad gaar u arkay ciyaaraankani. Kabtankani kooxda kubadda cagta Roma Alessandro Florenzi ayaa xilli amaaha ku soo qaatay kooxda kubadda cagta Valencia ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Isbaanishka. Jirada Sky Sport Italian ayaana markaas soo xiganaysa in 29 jirkan waqtiga kan xaadirka fursad xooggan bay u tahay inuu dhageysan karo dalabka ama xiriirka wanaagsan baa ay la soo sameynayso kooxda kubadda cagta Everton iyadoo sidoo kale laacibkan Florenzi aad loola xiriirinayo kooxda kubadda cagta Atalanta ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Talyaaniga. Roma inta badan ayaa markaa la xusayaa inay iska fasaxi doonto ciyaaraankaasi maxaa yeelay waxa loo arkayaa Janis aad u wanaagsan in ciyaaraankani dadiisu ay tahay 29 jir la gaaray waqtigii uu macsalaameyn lahaa Stadio Olimpico ee kooxda kubadda cagta Roma. Everton waa kooxda kaliya ee marka la wareegi karta ciyaaraankaasi haddii dalab rasmi ay ka soo gudbiyaan xidigaasi kabtanka waa kooxda kubadda cagta Roma Alessandro Florenzi. Milkiilayaasha cusub ee kooxda kubadda cagta Roma ayaa waqtiga kan xaadirka isku dayaya inay marka dib Stadio Olimpico ay dib ugu soo celin doonaan xidigii amaahda ku ahaa ee Chris Smalling oo hadda dib ugu laabtay waddankaasi Ingiriiska. Waxaana kooxda kubadda cagta Roma ay aad ula dhacday muddadii oo Smalling uu la joogay kooxda kubadda cagta Roma inuu isbedel xoogan marka uu ku yeeshay kooxdaasi waana laacib saameyntiisa marka ku reebay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Roma dhawaan ay ahayd markii xagaasimaha kooxda kubadda cagta Roma uu ku dhawaaqay in kooxda kubadda cagta Roma loogu baahan yahay heshiis joogto ah ciyaaraankaasi marka ay la soo saxiixdaan. Manchester United oo laacibku ka tirsan yahay ayaana markaa sheegtay in ciyaaraankaasi ay ku qiimeynayso adduunyadeed gaaraya 18 milyan oo lacagta ganiga. Shakhsiyan ba ciyaaraankani Chris Smalling ayaa markaa doonaya inuu dib ugu soo laabto horyaalka dalka Talyaaniga gaar ahaan kooxda kubadda cagta Roma. waa hadii markaa la isku fahmo labada dhinac ee Roma iyo kooxda Manchester United saxiixa ciyaaraankaasi Chris Smalling. Manchester ayaa diidan qiimayntiisa inay markaa ku sameyso xidigaasi Chris Smalling kaliya 18 milyan ayaa kaga xiran kooxda kubadda cagta Roma in heshiis joogto ah ay kala saxiixato ciyaaraankaasi. Waana mid kaliya ay maamulka sare kooxda kubadda cagta Roma ay wadaan inay soo gabagabeeyaan arrimaha ku aadan xidigaasi Chris Smalling qaabkii dib loogu celin lahaa kooxda kubadda cagta Roma xil ciyaareedkani. Waryaanka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee Gonzalo Higuain ayaana markaa xusaya in uu diyaar u yahay u dhaqaaqista horyaalka waddankaasi Mareykanka. balse waxa uu laacibkan Gonzalo Higuain uu leeyahay hadda waxaan ku faraxsanahay inaan sii joogo kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. Laacibkan reer Argentina ee Gonzalo Higuain ayaa xil ciyaareed amaah ku soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Chelsea xil ciyaareedkii 2018-2019. waqtiga kan xaadirka wiilka reer Argentina Gonzalo Higuain ayaana markaa xusay inay jiraan xiriiro kala duwan bay la soo sameeyeen qaar kamid ah kooxaha ka soo jeeda horyaalka MLS ka waddankaasi Mareykanka. hadda waxaan doonayaa inaan la sii joogo kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus sidoo kalena aan la shaqeeyo tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Juventus Andrea Pirlo. muhiimad gaar ah ay tahay inaan kooxdeeda aan ku sii sugnaado waayo waxaan doonayaa inaan sii dhameysto muddada halka sano ah. waxaana Gonzalo Higuain uu leeyahay rajo weyn ayaan ka qabaa waqtiga kan xaadirka ma jirto culeys xoogan ay iga haysta kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. kaliya waxaan qirayaa inaan wali ahay xidig aad ugu qanacsan ma garan karo waxa dhici kara berito laakiin waxaan xilligan aaminsanahay oo kaliya inaan ahay xidig ka tirsan kooxda kubadda cagta Juventus ay doonayana inuu sii joogo xil ciyaareedka cusub ee 2020-2021 ee horyaalka dalka Talyaaniga. kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee ka dhisan horyaalka Bundesliga waddankaasi Germany ayaana mar kale ku adkeysanaysa inaysan sinaba u fasaxi doonin xidigooda Sancho oo muddo aad u fara badan ba ay baadigoobeysa kooxda kubadda cagta Manchester United. laacibkan Sancho ayaa la leeyahay waa uu u qalmaa qiimaha kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waqtiga kan xaadirka ba ay ku baadigoobeyso in ay markaa xidigaasi kaga xureyso garoonka. laacibkan Sancho ayaana kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund la sii joogi doono xil ciyaareedka cusub ee horyaalka waddankaasi Germany maadaama xidigan Sancho oo aad u doonayay inuu ku biiro Stadio Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United. tababaraha kooxda kubadda cagta United macallin Ole Solskjaer ayaana markaa ku guuldareystay inuu wax natiijo uu ka soo gaaro dalabkiisa ku aadanaa xidigaasi Sancho 120 milyan oo lacagta euro-ga ayaana kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund markaa sheegtay inay ku fasaxi doonaan xil ciyaareedka soo socdana uu baaqo ku sii noqon doono ciyaaraankaasi kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. madaxa isboortiga kooxda kubadda cagta Crystal Palace ayaana markaa sheegay in waqtiga kan xaadirka uu ka warqaba kooxaha ka soo jeeda horyaalada Faransiiska iyo Germany inay aad markaa u soo xiiseynayaan xidiga reer Afrika ee Wolves 27 jirkaan ayaa xil ciyaareedkan
aynu kasoo gudubnay waxa aad u xiiseynayay dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska sida Arsenal, Manchester United, kooxda kubadda cagta Everton, balse kooxaha ka dhisan Premier League Arsenal iyo Everton ayaa horay dalab ka gudbiyay ciyaaraankan ka tirsan kooxda Crystal Palace ee Wolverhampton waa laga soo diiday kaliya kooxda Crystal Palace ayaa doonaysa xidigaasi in garoonka ay kaga dirto adduuncageed gaaraya 80 milyan oo lacagta ganiga. Wolverhampton wuxuu doonayay inuu ka hubadisho mustaqbalka kooxda kubadda cagta Crystal Palace. Maalmihii ugu dambeeyana waxaa soo baxay kooxo ka soo jeeda horyaalada Jarmalka iyo Faransiiska sida Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund iyo kooxda kubadda cagta Monaco dhamaantood xaqiijinaya inay u baahan yihiin saxiixa ciyaaraankaasi Wolverhampton, ayadoo kooxda kubadda cagta Crystal Palace wali ay taagan tahay qiimaha gaaraya 80 milyan in laacibkaasi marka ay kaga diri doonaan garoonka. golahayii hore kooxda kubadda cagta Manchester City Joe Hart ayaa markaa ku biiray kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur maadaama golahayii hore ee xulka qaranka wadankaasi Ingiriiska Joe Hart oo waqti kan xaadirka uu u saxiixay heshiis 2 sanadood kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur oo toddobaadkiiba uu ku qaadan doona dulcageed gaariyo 50 kuna. laacibkan ayaa yiri aad ayaan ugu faraxsanahay waqtiga kan xaadirka inaan ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, waa koox aan aad u xiiseenayo, waxaan doonayaa in si wanaagsan aan ula shaqeyn doono tobraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Jose Mourinho. inta badan kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska maysan maleysan karin Joe Hart inuu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Tottenham, kaliya waxaa la aaminsanaa golhaye Joe Hart in markaa meel ka baxsan Premier League uu u dhaqaaqi karo xil ciyaareedkani, laakiin si lama filaan ayuu u cag dhigtay kooxda uu hogaaminayo macallin Jose Mourinho ee Tottenham Hotspur.